askartu waxay wiilka ku riixeen bartamaha harada. Kadibna waxay garaaceen durbaanada. Waxay ku yeereen bahalkii qadiimiga ahaa ee ku hoos jiray harada. Bahalkaasi wuxuu u ekaa mid aad u khatar badan. Isla markiiba markii uu soo muuqday wuxuu cunay askarigii u yeeray. Qof walba cabsi ayaa ku dhacday, mana jirin qof ku dhiirada inuu dhaqaaqo. Nasiib wanaag, weli waxay haysteen bambaqiiq ah. Markii ay tuureen waxay si degdeg ah u dabooleen baxsashada dadka oo dhan. Laakiin markii bamkii qarxay, bahalkii wuxuu noqday mid aad u carooday. Wuxuu ku dhawaaday inuu qabto. Nemo si kama ah ayuu u ogaaday in araggiisu daciif yahay. Markaas ayuu si degdeg ah dadka oo dhan ugu hoggaamiyey inay ku dhuntaan dhagaxyada gadaashooda. Laakiin nasiib darro, askari ayaa xilligaas qayliyey. Qayladii waxay si toos ah u argagixisay bahalkii badda, wuxuuna askarigii hal qaniinyo ku liqay. Waxay u muuqataa in bahalka badda maqalkiisu aad u xasaasi yahay. Fursaddaas ayay ka faa'iidaysteen, qof walbana wuxuu dardargeliyey baxsashada ilaa ay ka gaareen doontii ku taalay xeeb. Dhammaantood si degdeg ah ayay u galeen quusiyaha submarinika, way xireen albaabka, waxayna isu diyaariyeen inay baxsadaan maadaama ay ka fog yihiin. Bahalkii badda wuxuu waayey bartilmaameedkiisii. Laakiin lama filaan, markii matoorku shidmay, dhawaaqa weyn ayaa si toos ah u soo jiitay dareenkiisa. Bahalkii badda ayaa biyaha ku booday, isagoo waalan kuna soo ordaya quusiyaha. Wuxuu si toos ah ugu duubmay quusiyaha oo qolka gudihiisa ayaa hal wareeg buuxa isku rogay. Nemo wuxuu amar ku bixiyey in matoorka la damiyo, isagoo isku dayaya inay ka gudbaan iyagoo aan wax dhawaaq ah samayn si bahalku u caajiso una tago. Laakiin waxa ay filan waayeen ayaa ahaa, markii bahalkii eelka uu quusiyaha ku duubmay, jirkiisa waxaa ka soo baxay koronto danab sare leh.